Markan waxaan isla soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay ee imtixaanka ka wada shaqeynta maadada xisaabta ee sanad dugsiyeedkii hore 2022-2023. Haddaba marka waa kana imtixaanka qaybta ugu dambeysay marka waxay leedahay waa qaybta saddexaad waa ku buuxi tirooyinka meesha noogu qoran meelaha bannaan. Tirooyinka inta noogu qoran waa 350, 3 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -4 iyo hal haysanaa iyo 6 waji 5 xaa loo qeybiyay 8. tirooyinkan rabnaa inaan ku buuxino meelahan bannaan oo noo bannaan inaan ku buuxinaa rabnaa. Su-aasha ugu horeysa marka waxay noo qornaa haysanaa waa su-aasha 46 waa haddii loo tibaaxu leeyahay tirada eber dhibic eber 3 qormo saynis jawaabtu waa tiradana rabnaa inaan u bedelno qormo saynis ahaan. Haddaba marka qaab noocee lagu shaqeeyaa marka si jawaabta meeshan aan ugu doorano. Haddaba marka waa kana aan ka shaqeyno su-aasha waxaa waa eber dhibic eber 3 waa in waxaa rabnaa u bedelno qormo saynis. Marka inaan u bedelnaa rabnaa qormo saynis ugu horeyn waxaan dhihi doonaa horta boontiga dhinacan usoo wad oo dhinaca tirada ee taalo ayaa boontiga usoo wadi doonaa oo marka hore boontiga soo dhaqaaj inta keen 1 2 3 4 ilaa xageen doonaa banaanka ilaa tira maxaa ee boontiga dhinacan ka marto. Hadda boontiga intuu yeelaa marka oo waxay soo bixi marka waxay noo qoran soo baxay waa 3 boontiga intuu yeelaa banaanka badi mar boontiga inta yaalo ee wax tira ka dambeeyay boontiga waa la qariyaa marka waxay maana kaliya waa 3 oo ku dhufan doono maxaa 10 inta maraasi kana waxaasi kana kaliya 1 jeer 2 jeer 3 jeer 4 jeer waa oo waxa ku jibaar doonaa maxaa marka -4 waa dhinaca laga keeno oo bidix dhinaca midig la soo aado maxaa waa 3 lagu dhuftay 10 ku jibaaran -4 waa jawaabta. Haddaba marka imtixaanka ka fiirina marka waa kana imtixaanka haddii imtixaanka ka fiirino jawaabta marka waxay noqonaysaa midaan waa jawaabta marka oo waxaa waaye 3 oo lagu dhuftay 10 oo ku jibaaran -4 waa. Su-aasha 47 waxaa haysanaa inoo qoran haddii wuxuu leeyahay la isu geeyo xaa loo qeybiyay 8 oo loo geeyo 4 xa oo loo qeybiyay 8 waxa ay la mid tahay uu leeyahay. Midaan aan ka shaqeyn marka si jawaabta aan soo helno waatana su-aasha halkan inoo qoranta waa kana waa xa oo loo qeybiyay 8 loo geeyay 4 xa loo qeybiyay 8 waa ugu horeyn wax dhidana horta waxaa fiirin doonaa hooseeyaha hooseeyaha kan waa 8 kan waa 8 marba haddii hooseeyaha labadaba ay isku mid yihiin ee 8 isla yihiin haddii marba hooseeyaha isku mid yihiin hooseeyaha la qaadan doonaa wax dhid doonaa hooseeyaha 8 waa ay kan koowaad inoo soo qaad oo xa ah oo sareeyaha koowaad wax ku dari doonaa kan labaad oo maxaa waa 4 xa ay kan marka horgalihiisa hal waa markan hal u qarsan ay halkan xa wax ku dari doonaa 4tan xa marka hal xaad lagu dar 4 xa maxay imaan doono oo waxaa noo imaan doona waa 5 xa oo loo qeybinay maxaa marka 8 waa oo jawaabta soo helna maxaa marka waa 5 xa oo loo qeybiyay maxaa 8 waa marka haddii imtixaanka ka fiirino waa kana imtixaanka marka haddaba marka imtixaanka ka doorano jawaabta waa tan marka jawaabta oo maxay noqonaysaa waa 5 xa oo loo qeybiyay 8 waa. Markan waa su-aasha 48 waxaa haysanaa 3 jibaarana oodan waxa uu leeyahay meela bannaan dash oo isla eega qoran hay 350 miya 1 miya iyo 6 waji miya. 3 jibaaran oodan marka wuxuu leeyahay maxaa waaye 6 waji oo maxaa dooran doonaa marka waa 6 waji meesha ku buuxin doonaa wuxuu leeyahay dhidana waa 6 oo waji waa. Hay su-aasha 49 waxaa qoran qiimaha wuxuu leeyahay hal loo qeybiyay 3 oo ku jibaaran eber waa hal loo qeybiyay 3 dhammaan ku jibaaran eber marka maxay la mid tahay idin mar hadduu jibaarka eber yahay maxaa soo baxaya marka waxaa soo bixi doona maxaa waaye hal oo keliya jawaabta waxaa waaye hal waa marka oo midaan dooran doonaa. Ugu dambeyn marka waxaa soo haray 350 waa maadaama id soo hartay bartana ku buuxin doonaa ida wixii soo haraba meesha soo haray ilaa yimaano 350 waa marka. Haddaba marka haddii aan fiirino marka su-aasha kontonaad waaye marka aad adeegsato xeerka hormagalinta 10 lagu dhuftay 7 lagu sii dhuftay 5 jawaabtu waa qoran macnaheedu xitaa haddii aan kala hormarno su'aalaha hadda midaan haysanaa midaan saamka qoranta haddii aan kala hormarino aan dhahno 10ka banaanka dhig oo waxa dhahdaa 7 oo lagu dhuftay 5 oo haddii aan kala hormarino hadhow jawaabta maanaysa labadaba same 10 ku dhufo 7 maxay maanay waa 70 kadib ku sii dhuf fadhi doonaa 5 marka maxaa noo imaan doona 350 350 waa saas lamidana intan waxay imaanay 7 ku dhuf 5 maxay imaan doona marka hore 35 waa haddii 5 ku dhuf fadhi doonaa 10 iyadana maxay imaan doona 350 waa marka labada dhinac marka maxaa isku mid ah hadii tirooyinka maxaa waaye
oo la sameeyo hormagal oo kale oo hal xab banaanka loo bixiyo labada kale gudaha la geliyo jawaabta imaanaysa labadaba isku mid yihiin oo maxaa 350 ayaa maxay noqonaysaa jawaabta maxaa waay oo la dooran doono oo meesha lagu buuxin doono midna waa marka 350 waan halaasoo kaliya marka imtixaanka xisaabta oo qaybta koowaad iyo labaad iyo saddexaad intaba waa sameynay si marka ay noogu fudaato mid kasta isku dayno si gooni ah in meel aan u qorno kadibna aan practice gareeno si maxaa hadhow ay noogu fudaato aad waa mahadsantihiin thank you